ciidamo maleeshiya beeleed ahaa oo Somaliland qaramaysay sanadkii hore fadhigooduna ahaa magaalo lagu magacaabo Caraweyn oo ka tirsan gobolka Buuhoodle ayaa waxaa la sheegayaa inay guud ahaantood ku biireen maamulka Puntland waxaana la sheegayaa inay ciidamadaasi imika xagga isugu wada digarrogteen tan ayaa imanaysa waqti uu gobolka booqanayo wasiirka soo jeeda gobolka Buuhoodle oo ah wasiirka qorsheynta waxaana la rajaynayaa inuu xaaladahaasi dejiyo waxaana ka hadlay arrintaasi ciidamo kale oo iyaguna qaab beelaysan ugu degan halkaasi qaramaysanna oo ka tirsan Somaliland waxaana la sheegayaa inay ciidamada kale laftirkooda ay beeniyeen warkaasi hase yeeshee warku uu xaqiiqo yahay waxaana ka mid ahaa hadaladii ciidamada kale oo ay fadhigoodu iyagana yahay magaalada Buuhoodle oo degmadaasi ay hoos tagto maamulka Puntland oo hore waxa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidamada Somaliland oo ka warbixiyay ka timid Puntland oo si xun u faragelinaysa arrimaha ummadda Somaliland ayaa halkan idinku diyaara waxa la leeyahay waxa diyaara wax maanta ciidankii ka maqan ma jiro kuwa iyo Caraweynta wax ka dhacayna haddaan ku baxayna haddaan laga dhigo bal wixii ka xumaaday aan ogaanay dambiilada soo xireen caddeynayna anagoo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland fadhigeeda ahaa Caraweyn 2016 bishii 6 lagu qarameeyay kuna soo guuray amarka jaranka Buuhoodle ku deganeen 2 sanadood shalay beenaawur ka dhacay Caraweyn ciidan Puntland oo tagay isku sawiray sidoo nin naga baxsay anaga oo ciidankeega haweenin ay garaad u watay banaadan ka beenina inay been tahay Puntland waxaan leeyahay fargelinta deegaanka naga deyn wixii ka dhacay meesha ninka qabo ciidankan waa guntada sagaashadiyo shalaad fadhigeedu uu yahay Buuhoodle waxa weeyaan arrintii shalayta Caraweyn ka dhacday ay ka sameeyeen maamulka Puntland niman ka socdo xildhibaan sheeganaya noo ciidan oo ay wataan sideed askari oo kaantaroolka jooga anaga fakad banaga ah ayay iyo dad ay urursadeen iyo ciidan ay wateen bay sawir ka duubeen ciidankii Caraweyn buu ahaa nimankaasi waxba kama jiraan kuwaana tallaabo sharciga waafaqsan baanu ka qaadaynaa anagoo ciidanka Somaliland ee degan Buuhoodle ah ciidankii Somaliland dhabta ahaa halkaa ku fayshay annagoo odayaasha reer Buuhoodle waxaanu beeninaynaa hadalkii waxba kama jiraan ka ah barabagandada iyo been abuurka ahaa ee shalay koox Puntland uu ka sameysay Caraweyn waxaanu ku beeninaynaa ciidankii qaranka Somaliland ee Caraweyn joogay ee amar dawlad kaga soo guuray 9 bilood ka hor saldhigii ciidan ee loo sameeyay inuu degan yahay kuna dhan yahay wuxuu Puntland la galay iyo wuxuu ka noqday midna uusan jirin uu dhisan yahay ee dawladdu hore warqadoodii samaysay iyaguna si degdeg ah hawlgalkiisa iyo nidaamkiisa inay u soo dhameeyaan noona soo dhameeyaan ciidankaas soo qardhactira dad aan waxba ka ahaan jirin ba ku soo duulay Xuseen Xasan Cabde telefishinka